بسم الله اللهم صل على محمد. waxaan joognaa deegaanka Abaarso oo bisha May khamiis u dambaysa sidii caadada noo hayd waxaan maanta ku guud jirnaa ololihii caasimadda lagu nadiifinayay. maanta waxaan u soo baxnay deegaanka Abaarso waxa ii farxad ah inaan maanta Ilaahay ugu simay hawsha mutadawacnimada hawshaasi ajarkeeda iyo xasanaadkeeda leh cidna abaalanaan kaga doonaynin. waxaan halkan uga mahad celinayaa Ilaahay kisako ururada inagala hawlgalay iyo maamulka deegaankaba gudoomiye Jabaax iyo ururka dhab iyo ururka anfac ardayda jaamacadda Hargeysa social worker oo aad iyo aad ugu mahad celinayo sida wanaagsan oo shaqeeyeen. waxa kale oo halkan aad ugu faraxsanahay iska daa inay cid kale nagala qayb qaadato deegaanka Abaarso oo iska daayan yar iyo weyn. waxaan aad ugu faraxsanahay in gudoomiyaha Abihi Yaasiin uu nagala qayb qaato qashinka gacmihiisa nagula gureeyay iska daa kii yara iyo kii weynaabe haddii uu gudoomiyaha Abihi nala shaqeeyay oo si wanaagsan looga qayb qaadanayay. waxaan aaminsanahay inaan cid bahadhinba reer Abaarso waxaan ku dhiirigelinayaa reer Abaarso inay sida wanaagsan uga qayb qaateen qashinka ururtiisa ay had iyo jeer uga qayb qaataan hawlaha kale danta guuda. waxyaabaha danta guuda markaad qabataan Ilaahay dantiina gaarkaan waa idin dhameystiraya. ducana waxa loogu aqbalo ducada walaalka u ducayso. bismillahir rahmaanir rahiim. maanta ay tahay maalin khamiis bil u dambaysa oo sida caadiga ahayd dawladda hoose ololihii ay qaadi jirtay aanu joogno deegaanka Abaarso. ololahan nadaafadeed waxaa nagala qayb qaatay maamulka deegaanka Abaarso, ururka dhalinyarta anfac, dhalinyarta arrimaha bulshada ee dhab, dhalinyarta kulliyadda arrimaha bulshada social worker ee jaamacadda Hargeysa iyo anagoo ah degmadii Gacma Dheere. ololahaasi wuxuu noogu soo dhamaaday si khayr leh. dadka deegaanka iyo dhammaan bulshada ku dhaqan deegaankan Abaarso oo iyaguna qayb ka ahaa ololahani aad bay soo dhaweeyeen. waxaanay ballan ku qaadeen in hadda wixii ka dambeeyay iyaguna halka ka sii wadi doonaan si wiigla si labada wiig mara haddii alla ka dhigo. waxa kaliya ku daraya oo inta ku soo kordhinaya maadaama xilli roobaad lagu jiro qasaaraha uu leeyahay qashinku ama se nadaafad darradu waynu isla garanaynaa oo diinteenu waxay sheegtay inuu nadaafadu tahay nus ka mid ah iimaanka. marka waxaan ku boorinayaa in bulshada guud ahaan degmada Gacma Dheere degan gaar ahaanna deegaanka Abaarso inay iska basriyaan qashinka ay iska ururiyaan xilli roobaadka maadaama lagu jirana ay aad ugu dadaalaan sidii hore isaga ururin jireen si ka badan ay isaga nidaamiyaan. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhammaan hawlwadeennada iyo ciddii nagala qayb qaadato dhan. hadlaya magaca ururka anfac waxa maanta ah khamiis bil u dambaysa oo aanu ka qayb galnay ololaha deegaanka degmada Gacma Dheere. waxaan u mahadnaqayaa ururka dhalinyarta dhab oo nagala qayb qaatay nadaafadda magaalada. waxa kale oo u mahadnaqayaa maamulka degmada Gacma Dheere gudoomiyaha iyo qaybta nabadgelyada oo maanta nagala soo qayb gashay ololaha nadaafadda. waxaan kale oo u mahadnaqayaa maamulka deegaanka Abaarso oo u horeeyay gudoomiyaha iyo cid kasta gudoomiyaha Cumar Yaasiin iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay ololaha iyo qiimaha nadaafadda. waxaan ku boorinayaa bulshadu inay ku dadaasho inay mar walba ay diyaariso xashiishka oo ah ka dhalan karaan xanuuna haddii aynaan iska hagaajin. ololahan maanta nadaafadda Abaarso ka wadnay waxaan u mahadnaqaynaa gudoomiyaha degmada Gacma Dheere Maxamed Iibaan iyo ku-xigeenkiisa xogayaha iyo dhammaan dhalinyarada Abaarso iyo ururka isnaaguna dhab. waxaanan ku mahadnaqaynaa siday maanta magaalada ugu sameeyeen ololaha nadaafadda ee qaaliga. waanan u mahad celinaa haddaanu nahay dadka bulshada reer Abaarso. waxaanu ku mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee sharafta leh karaamada leh ee dhalinyarada labada ururka anfac iyo ururka dhab ay uga qayb qaateen. maamulka deegaanka isaguna Abaarso Cumar Yaasiin gudoomiyaha iyo dhammaan shaqaalaweynaha degmada Gacma Dheere iyagana aad iyo aad ayaan u mahad celinaa. maanta bishu tahay 25 bishii shanaad maalin khamiis ah oo ah waxaan sameynay maanta ololo ka mid ah ololaha degmada Gacma Dheere ee dawladda hoose. marka maanta waxaan ka shaqeynay Abaarso. marka waxaan si fiican ula shaqeynay ururka anfac iyo dhammaan hawlwadeennada degmada Abaarso. bismillahir rahmaanir rahiim. ugu horreyn waxaan halkan aad uga mahad celinayaa maamulka degmada Gacma Dheere, maamulka caasimadda Hargeysa ugu horeeyo maayirka caasimadda Hargeysa iyo maayir ku-xigeenka iyo guddida fulinta. runtii maalintan khamiista ahi bisha u dambaysa in laga shaqeeyo nadaafadda waa maalin aad iyo aad u muhiim ah. horena aan uga jirin degmada Hargeysa ama caasimadda Hargeysa maamulkan imika jooga ka hor. Abaarso ahaan runtii maanta nooguma horeyso laakiinse waqti dhexe ayuu naga kala go'ay ololaha inaanu sameynaa.
inaynu maanta dib u bilowno ololihii khamiista aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan halkan si gaar ah uga mahad celinayaa ururka dhalinyarada anfac ee deegaanka waxa kaloo isaguna ka mudan inaan mar walba abaarsa ka sii magaranaysaa gaar uga yeelno xusno ururka dhab oo ka shaqeeya arrimaha bulshada degmada Gacmadheere kala shaqeeya iyo ardayda kuliyadda waxa weeyaan kuliyadda arrimaha bulshada social work ee jaamacadda Hargeysa oo iyaguna qayb ka ah ololahan runtii safar bay soo galeen oo halkan u yimaadeen aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa مكانين ورسول لطاقتيو عاصمة كونيرشانين هدينا نعود كورين هورين دلين هيلك قرن جعل ديرتنا وهيقنا دلين هيلك قرن جعل ديرتنا وهيقنا